السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ميل كستو aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada warkii magacaygu waa Saadiq Cabdi Guumbe qodobada wararkana waxa ka mid noqon doona wasaaradda maaliyadda ee dowlad goboleedka Puntland oo qabatay lacago shilin Soomaali ah oo faalsa isla markaana ganacsatada uga digtay inay lacagahaasi ay qaataan maamulka galmudug oo u dabaaldegaya sanad guuradii toddobaad ee ka soo wareegtay xilligii dhidibada maamulkaasi loo aasay iyadoo markaasina loogu xafladeeyay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug wasaaradda adeegga bulshada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa tababar ku qabatay magaalada Muqdisho oo markaasi looga go'an leeyahay sidii loo baran lahaa cudurrada markaasi ama looga hortagi lahaa cudurrada ku dhaca haweenka iyo dhallaanka wararka caalamkana waxa ugu waaweyn 94 qof oo ku dhimatay wadankaasi Masar kadib markii ciidamada militarigu ay bilaabeen in ay dadka banaanbaxaya ku kala kaxeeyaan gaaska dadka ka ilmeysiisa iyo waliba rasaas la sheegay in dadku ay u geeriyoodeen iyadoo isbitaalada kala duwan dalkaasi Masarna ay buux dhaafsheen dhaawacyada rasaastaasi ay geysteen